waxaan joognaa xafiiska imtixaanaadka waa dugsiga Salaama runtii waxa weeyaan sidii caadada ahayd dugsiga Salaama waxa uu maanta ka muujiyay wacdaro imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee xafiiska imtixaanaadku ku dhawaaqay runtii waxa weeyaan dugsiga Salaama waxa uu galay kaalinta saddexaad 10 arday ugu sareeyay Somaliland waxa uu galay kaalinta waxa weeyaan waxaan leenahay ardaydeeda noo gashay hambalyo waalidiintii waxaan u hambalyeynaa macallimiintii soo saaray oo noo hambalyeynaa waxaan leenahay Salaama School guul hambalyadii ardayda dugsiga sare ee Salaama run ahaantii waa arday ilaa intii ay soo galeen saaxadda waxa weeyaan imtixaanka oo ahayd 3 sano ka hor intaaba kaalmo soo galayay run ahaantii waxaad moodaa grade-kooda ardayda iyo waxa weeyaan inuu kor u socdo sanadkii u horeeyay oo ahaa waxa weeyaan kan saddexaad kaalinta 8aad bay ardaydu galeen sanadkii soo dhaafay ardaydu waxa weeyaan 6 kaalmood bay galeen oo waxa weeyaan top 10 kana 2 kaalmood bay ku lahaayeen xagga hablahana 4 kaalmood bay ku lahaayeen kaalinta 5aad bay ku jireen imikana kor bay u sii socdeen waxay marayaan kaalintii waxa weeyaan saddexaad guud ahaan ardayda natiijadooda iyo average-ka ayaa wax laga eegayo celceliska natiijadooda way fiican tahay oo A iyo B bay u badan ardada sanadkan dugsiga sare galay imtixaanka u fariistay shahaadiga Salaama Secondary iyo Salaama Primary aniga oo hambalyeeyo waxaan raasa gaar ah inuu hambalyeeyo ardayga wacdarada ka muujiyay tusaale natiijada keenay kaalinta saddexaad oo ah ardaygaygii ama inankii anigu aan waalidka u ahaa isagana aad baan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay darajo fiican baad gashay halka kaga hayd ilaa iraado waxa weeye halkaas ay ka bilaabaysaa guushu insha Allah taala hambalyaan leeyahay iskuulka waa hambalyo isaga waan hambalyeynaya dhammaan waalidiinta kale